Thank you very much also for inviting me this important panel. Just to start the waad ku mahadsantihiin casuumaadan adiga siiseen doodan muhiimka ah marka hore marka laga hadlayo qaab dhismeedka heer qaran shaki la'aan waxaan leenahay hindisaha xalka waare ee Itoobiya iyo siyaasadda maareynta khatarta musiibooyinka kuwaas oo si cad u darsaya nolosha dadkeena sidaa darteed qaab dhismeedkan wuxuu kulmiyaa hay'adaha federaalka iyo kuwa deegaanada dalka si ay mudnaan u siiyaan kaliya ma in dibadejin loo sameeyo dadka barakacay balse sidoo kale waa in la xaqiijiyo dib u dhaxgalkooda bulsho iyo dhaqaale haddii aan si gaar ah u tilmaamo deegaankayaga waxaan sidoo kale ku dabaqnaa qaab dhismeedka heer qaran iyadoo loo marayo istiraatiijiyad xal waara oo heer deegaana taasi oo isku xidhayso qorshaha adkaysiga ee sanadaha badan iyo qorshaha isbeddelka beeraha iyo siyaasadda horumarinta reer miyiga sidaa awgeed habkan hirgelinta ee maxalliga ah waxa uu xaqiijinayaa in la soo celiyo habnololeedka iyadoo loo marayo helitaanka dhulbeereed biyo iskuulo iyo fursadaha dakhliga sida bixinta xoolo yar iyo sidoo kale tababaro farsamo oo la siinayo dadka caqabadaha hadda ka taagan deegaanka waxaan wajahnaa isbirsiga caqabado soo noqnoqda mar kasta oo ay ka mid yihiin kuwa ka dhasha cimilada sida fatahaado iyo khilaafaadyo labaduba waxay u baahan yihiin wax ka qabasho degdega iyo xoojinta adkaysiga muddada dheer si aan arrintan uga jawaabno waxaan dib u dejinnay ku dhowaad 100,000 oo qof oo barakacayaal ah kuwaas oo 80,000 dib u dejin loogu sameeyay meelihii ay markii hore ka yimaadeen halka 20,000 la dejiyay deegaano cusub hindisayaasha dawladuna kaliya ma aha bixinta hoy la dego ee waxaa sidoo kale ka mid ah helitaanka dhulbeereed iskuulo iyo agab bilow ah oo loogu talagalay in lagu bilaabo nolol cusub waxa kale oo aan dhisnay hanaan sharci ah oo loogu talagalay faafinta xogta digniinta maalinlaha ah iyo habraaca ururinta khayraadka oo ay taageerayaan qurba joogta iyo bulsho kala duwan aad baad u mahadsantihiin that basically supported by diaspora and different communities.